taliska booliska ee magaalada Gaalkacyo ayaa faahfaahin ka bixiyay dhacdo dil ah oo nooceedu uu dhif yahay taasoo ku saabsan in carruurtiisa dilal u geystay. falkan oo ay saraakiisha booliska ku tilmaameen mid naxdin leh ayaan la ogeyn sababta rasmiga ah ee keentay, inkastoo la isla dhex marayo inuu jiray khilaaf u dhexeeya ninka carruurta dhalay iyo xaaskiisa. carruurta la dilay ayaa ahaa 2 wiil oo ay da'doodu ay ka yareen 12 sano. taliyaha booliska qaybta gobolka Mudug Muumin Cabdishire oo TV-ga NTN uga warmay sida ay wax u dhaceen ayaa sheegay in la soo wargeliyay kadib markii carruurta la waayay. eedeysanaha lagu magacaabo Axmed Maxamed Faarax oo 43 jir ah ayaa dilay 2 ciyaal ah oo dhalay oo midna yahay 10 jir midka kalena yahay 11 jir, laguna kala magacaabo Idris iyo Sakriye ayuu yiri taliyaha. ninka dilka carruurtiisa ku eedeysan ayaa falkan ku geystay guri uu magaalada Gaalkacyo ka degan yahay sida ay saraakiishu xaqiijiyeen. carruurta oo markii hore ay hooyadooda ay haysatay ayuu ka codsaday inuu geeyo xarun waxbarasho oo college ah, sidaasna loogu ogolaaday inay raacaan. waxaase la rumaysan yahay in isla maalintii uu kaxeeyay gudaheedaba uu 2 wiil ku dilay gurigiisa. taliya Muumin ayaa sheegay in ninka aysan ku ogeyn wax xanuun ah balse guriga uu falka ka dhacay laga helay maandooriyaal. caafimaad darro naguma muuqanin, laakiin waxaa jiray maandooriyaal xad dhaaf ah oo ay ciidanka soo qabteen oo xashiis iyo qamri ah, waxaana aaminsanahay in daroogada ay sababi karto. dhowr jeer oo hore ayuu sheegay inuu xabsiyo soo maray laguna yaqaanay inuu maandooriyaasha isticmaalo, dembiyo kalena uu hore u galay. eedeysanahan markii uu wiilasha uu dilay wuu seexday. taliyaha booliska ee la hadlay NTN TV ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen ninka eedeysanaha ah. waxa uu sidoo kale ka warbixiyay marxaladii ay ugu tageen goobta. boolisku markii ay guriga ay tageen waxay la kulmeen isagii oo qolka carruurta ku dilay qolka kalena hurda. waxaa loo tagay isagoo jiifa oo si caadi ah u hurdaya ayuu yiri Muumin. waxaa hadda socda baaritaano lagu hayo ninkani, markii kiiskiisa la diyaariyana waxaa loo gudbin doonaa xabsiga si maxkamadiisu ay u bilaabato. dhacdooyinka ku saabsan dilalka ka dhaca qoysaska dhexdooda ayaa ku yar Soomaalida, balse tani ma aha dhacdadii ugu horeysay ee nooceeda ah. bishii November ee sanadkii 2020 ayay ahayd markii u dambeysay ee la soo tabiyo musiibo ku saabsan dilal loo geystay dad isku qoys ah oo cidda falkaas geysatana ay ahaayeen isla xubno ka tirsan qoyska. askari ka tirsanaa booliska Soomaaliya ayaa markaasi xaafad ka tirsan degmada Warta Nabadda ku dilay 6 ruux oo qoyskiisa ah oo uu ku jira wiil uu dhalay. waxa kale oo dadkaasi halkaas ku dhintay kamid ahaa eedeysanaha waalidiintiisa iyo walaalihiis. ninka dilkaasi argagax galiyay dadka deegaanka geystay ayaa adeegsaday bamba gacmeed, waxaana la soo tabiyay inuu isaga qodhiiso uu xilligaas isticmaalay maandooriye. NTN TV.